asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan qodobada warkeena maanta aan idinku haynana waxaa ka mid a wasiirka difaaca ee wadanka turkiga khulusi akar oo ka hadlay arrimaha liibiya boko xaaraam oo dad badan ku dishay wadanka nigeria qodobo ayaa idinka haynaa daawadayaal kusoo dhawaada warkaas oo faahfaahsan. waayahay mar kale kusoo dhawow daawaday qodobada warkaas oo faahfaahsan. taariikhdu maanta waa 2020 bisha 6 tobankeeda. wasiirka difaaca ee wadanka turkiga khulusi akar oo maanta arbaca la hadlayay tv-ga TRT ayaa sheegay haddii ay joojiyaan turkigu taageerada ay siiyeen wadanka liibiya waxaa istaagi doona dagaalka liibiya. sidaa waxaa yidhi wasiirka difaaca ee wadanka turkiga khulusi akar. sidoo kale wuxuu sheegay inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan wadanka liibiya. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka turkiga mafluud kafajugle ayaa sheegay xabajoojida ka dhalatay buu yidhi wadanka masar ee magaalada qaahira kama dhalan buu yidhi wadanka turkiga, taasoo macnaheedu yahay wadanka turkiga ma ogola wax xabajoojina taasoo laga dhex sameeyo dhinacyada ku dagaalamaya wadanka liibiya. iminkana aan eegno wadanka nigeria. kooxda ka dagaalanta wadanka nigeria taasoo loo yaqaano boko xaaraam ayaa soo weerartay gobolka loo yaqaano Rice Village waxaana la sheegay inay dishay dad ka badan 60. sidoo kale waxaa la xaqiijiyay inay dhaawacmeen 11 qof. gudoomiyaha gobolka Rice Village kaasoo loo yaqaano Babanana Sulum ayaa sheegay inay dhinteen 65 qof axadii. sidoo kale waxaa la sheegay inay dhaawacmeen 11 qof. gudoomiyaha gobolkan Rice Village Babanaya Sulum ayaa sheegay 2 week ka hor inay soo weerareen sidoo kale isla gobolkan kooxdan ka dagaalanta wadanka Nigeria taasoo loo yaqaano Boko Haram. sidoo kale waxay dileen 11 qof 2 week ka hor wadanka Nigeria. kooxdan ka dagaalanta wadanka Nigeria taasoo loo yaqaano Boko Haram ayaa ka dagaalanta muddo 10 sano wadanka Nigeria. waxaa ku barakacay wadanka Nigeria kumanaan qof taasoo uga tegay goboladan wadanka Nigeria. wadanka Nigeria madaxweynaha wadanka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa sheegay inuu ka adkaaday kooxdan, balse kooxdani baryahan waxay kordhisay qafaalashada dilka dadka hantidooda iyo sidoo kale nafta bini'aadamka. iminkana aan eegno Ukraine. madaxweynihii hore ee wadanka Ukraine ayaa soo dhaweeyay kaas oo la sheegay inuu galay dembi qaran berigii xilka hayay. sidoo kale wuxuu sheegay inuu iska baraxayo ama uu meel iska dhigayo kiiskan kaasoo ah mid lagu soo eedeeyay madaxweynihii hore wadanka Ukraine. iminkana wadanka Turkiga ayaa caawiyay faamiliyo ama qoysas kuwaasoo ku nool koonfurta wadanka Suudaan taasoo si ba'an u halakeeyay xanuunka COVID-19. iminkana aan eegno bariga dhexe. maxkamadda ugu sareysa sahnooniyadda yuhuudda ayaa diiday qodob la soo jeediyay 2017 kaas oo sharciyeynayay la wareegidda iyo qaadashada iyo degidda dhulka Falastiiniyiinta taasoo qabsatay yuhuuddu. maxkamadda ugu sareysa sahnooniyadda yuhuudda ayaa keentay qodob kale kaasoo ah 8/1 kaasoo kasoo horjeeda qodobkan ogol qaadashada iyo boobka iyo dhaca iyo yeelashada dhul aanay xaq u lahayn. waxaa la keenay qodob kale oo keentay maxkamaddu kaasoo ah 8/1 kaasoo kasoo horjeeda sharcigan. haddaba sharcigan 8/1 wuxuu badbaadinayaa waxyaabaha aanan sharciga ahayn kaasoo ogolaanayo qodobkan kale ee ah qaadashada iyo boobka dhulka Falastiiniyiinta. haddaba yuhuuddu waxay sii wadaa sharciyeynta iyo degidda iyo sidoo kale waxyeeleynta xuquuqda dhulka Falastiiniyiinta iyo ummadda Falastiiniyiinta. haddaba waxaasoo dhan waxaa ka mas-uula ra-iisul wasaaraha iyo sahnooniyadda yuhuudda Benjamin Netanyahu iyo xisbigiisa Likud Party. haddaba sahnooniyadda yuhuudda
ra'iisul wasaaraheeda wuxuu ku booriyay xildhibaanada inay dardargeliyaan qodobkan kaasoo ah 2017. haddaba qaar ka mid ah golaha baarlamaanka ayaa ogolaaday, qaar kalena way iska diideen. haddaba lagama yaabo ummadda falastiiniyiintii inay dib u helaan dhulkoodii ama ay maamushaan hantidooda. haddaba iminkan aan eegno koonfurta kuuriya waxaa dib loo furay waxbarashadii, iskuuladii, jaamacadihii iyo dhammaanba waxbarashadii, taas oo halakeeyay xanuunka covid-19 ama waxyeeleeyay. daawadayaal waxaa idinka haynay dhammaanba war dunida daafaha caalamka. waa naga intaan ku kulmi doono mid lamid waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.